aqalka dowladda hoose xamar ayaa lagu qabtay munaasabad uu maamul gobolka Banaadir ku soo dhaweynayay orodyahankii Soomaaliyeed ee Cabdi Bile Cabdi oo ahaa Soomaaligii ugu horeeyay ee ku guuleysta orodka adduunka ee 1500 mitir oo ka dhacay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga sanadkii 1987 kuna guuleystay bilada dahabka. munaasabadan Cabdi Bile lagu soo dhaweynayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, saraakiil qaybaha bulshada rayidka iyo fanaaniin. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in sportiska uu lafdhabar u yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarka nabadda, isla markaana loo baahan yahay in laga qayb qaato dhiirigelinta dhalinyarada. orodyahan Cabdi Bile Cabdi waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay isku tashtaan si loo gaaro halka la higsanaya. aynu isku tashano, aynu wax qabano, guushaas inaga daliilo ah, inaga keensanay, iminkana waynu keensan karnaa. ha noqoto wax inaga go'an oo aynu gabcaha isaga qabsano, ka midowno, dhalinyaradeenana mar dambe aynu rajadoodii yididiiladoodii soo celino dhalinyaradeenna, dalkeennana sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo wixii uu haybad lahaa aynu soo celino. xildhibaan Muna Cumar Xasan oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahayd mas'uuliyiintii goobta ka hadlay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu waxa uu tilmaamay in orodyahan Cabdi Bile Cabdi uu ka mid yahay taariikhda wanaagsan oo ay leedahay Soomaaliya. adiga soo noqoshadaada imaatinkaaga waxay runtii u noqonaysaa role model ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxay ka tarjumaysaa Soomaalidu inay taariikh leeyihiin, adduunkana wadan walba iyo ummad walba waxay ku horumartay waa taariikhda ay leedahay. taariikhdaas oo runtii jiilalka dambena ay buugaagtana ku arki doonaan, librarida adduunkana ka arki doonaan in Cabdi Bile Cabdi uu jabiyey rikoorkii orodka 1500 ee adduunka. maantana weli rikoorka la dejiyey uu 10ka ugu horeeya weli ka mid yahay. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku daydaan Cabdi Bile Cabdi. annaga ka wasaarad ahaan dhalinyaro iyo sport haddaan nahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir waxaa ku wada shaqaynaa arrimaha dhalinyarada sportiga. kow kasoo bilow aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadan horumarinta dhalinyarada iyo sportiga. cabdi waxaan rabnaa inuu ku daydaan dhalinyaradeenna la marin habaariyey, jidkooda laga leexiyey, ay arkaan in Cabdi Bile Cabdi oo arday ah oo qaranka Soomaaliyeed caalamka uga keenay abaalmarin dahab ah. kow inaan hadda ka faa'iidaysano khibradda iyo aqoonta waayo aragnimadiisa ku dheehan. munaasabada markay soo ilaatay ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu shahaadooyin sharaf gudoonsiiyay orodyahan Cabdi Bile Cabdi. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye iyo sidoo kale gudoomiyaha sportiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Yawrowish. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.